السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. adigoo caafimaadkaaga qabo lahaadkaaga qabo oo dhammaystiran yahay oo ilaahay ku siiyey lahaadkaaga oo dhammaystiran oo aan lacag lagaa siin oo aan lagaa soo gadin oo hanti kaaga bixin ka waran waxa keliya ilaahay uu kaa rabo mas uu kaa doonayo in ay tahay inaad asaga aabudo sida aayadda quraanka ay ilaahay ku sheegay jinni iyo insi looma abuurin baadil iyo ciyaar waa inay ilaahay aabudaan shaydaanka dadka lumiya oo dadka baadiyeeya ma og tahay inuu sigana ilaahay u aabudo adigu ku baadiyeyna baadilku kula rabaa inaad cadaab gasho uu rabaa laakiin asaga ilaahay ayuu aabudaya taasoo ka dhigan si kasta oo ilaahay uu aabudo wuxuu ka mid yahay maalinka qiyaamo kuwa naarta ku waaraya ayuu ka mid yahay asaga naarta maba ka badbaadiyay sidaas daraadeed ilaahay ayuu ballan ku la galay inuu ilaahay umad ilaahay uu baadiyeynayo oo dhumanayo ilaahayna wuxuu ku yiri qof kasto adigu ku raaca maalinka qiyaamo wuxuu gali doonaa naarta ayuu gali doonaa marka naarta maxaa lagu kasban karaa way farabadin inaad salaada ka tagtaa kamida inaad rasuulka kaleey salaatu wasalaam caayisida kamida inaad ilaahay kitaabkiisa ka tagto aad gaalidada kamida inaad waalidka ku caasida kamida way farabadin laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa waa nasteexo ilaahay muxuu yiri si kastaad u dhabantihiin hadaa sakaraatihiin hadaa uriyaamintihiin qof kasto sidoo u yaalo ayuu ibaadadina loo gudin karaa loo siin karaa sidee way marka qofka haduu u fadhiisin karin horta qofka haduu tacbaan yahay uu istaagi karin waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu amar fasaha u siiyay inuu fadhi ku dukan karo fadhiga haduu awoodi waayo maxaa liir inuu jiif ku dukan karo jiifka haduu awoodi waayo maxaa liir inuu fartiisa kaliya uu ku dukan karo maartay dhaqaaji karo ayaa liir sidaas daraadii ibaadada siday ku saxmi kartaa maxaa kale ibaadada lagu gudin karaa ilaahay subhanahu wa ta'ala hadan muxuu yiri salaadiina sad u dukutaan hadaa weysa qaad weysaan masweysa hadaad weysaan waxa liiri gabagabaysto maartay booreysta saas ku dugta hadii korkaaga meelihii biyaha la marin lahaa hadii dhaawac tahay hatta biyaha ka dhaafa liiri ilaahay ibaadadiisu bas ilaahay diintiisu waa nasteexo sida wajiga meel kasto weysada mar lahayd haday dhaawac tahay hatta inaad biyahaas ka dhaaftid masmaartay aayar aad u marisid baa lagu ogolaaday sidaas daraadeed maxaa liiri dharka adiga aad ku dukunayso waa inuu daahir ahaadaa daahirnimada wax dharkaaga ku halaysan hadii ay qoyin yihiin ha ku dukun waxa dharkaaga ku yaalo masmaartay dharkaaga oo fasaxaadka ku yahayna hadii ay qalalan yihiin maxaa liiri ha lagu dugto ilaahay ibaadadiisa masadiintiisu waa nasteexo 100% laakiin diimahan kale oo gaalada haystaan mas'uumadaha kale haystaan 100% way ka fiican tahay diinta islaamka yaani markasto waa nasteexo ilaahay subhanahu wa ta'ala saada janno waxshaan masjidada anta badan waxay ku jirtaa hooyadiina hooyada labada lugood hoostood ayay jannada ku jirtaa meesha ugu dhow maanta jannada la geliyay halkaas xitaa hadii aad taariku salaad tahay oo adiga ilaahay ibaas ka tagto hadii aad nin waalidkiis u fiican hataa tahay xitaa rajo ayaa leedahay yaani xadiis ayaa dhahaya jannada aad raadinayso waxay ku jirtaa hooyadaada agaheeda hoosteed ayay ku jirtaa lama dhihin aabaha lama dhihin sababtoo ah waalidka 100% yaa soo horeeya hooyo ummi saddex jeer ayaa hooyada la sheegay abi aabahana maxaa liiri waad garanaysaan waa xadiis weyn muuqaalka maxaa u keenay iyo ka hadalka maxaa keenay nin taabaana oo sariir saaran oo kaanul ku xiran oo taabaana hadina ka waran haduu salaad dukanay sidaas daraadeed waxaad arkaysaa boqolaal qof oo lahaadkooda qaba
boqolaal qof waxaad arkaysaa lahaadkooda qaba haddana ilaahay cibaadadiisa ka tagay baa jira way farabadan yihiin war adigoo caafimaad qaba lahaadkaa ilaahay ku siiyey ayaa cibaadada ka tagtay ilaahay duul banaanka muxuu horta dhulka maxaa lagu keenay inaa ilaahay caabudad kaliya lagu keenay muuqaalkan waxaan ku keenay muuqaalkan meesha ka muuqda ayaan ku keenay ilaahay ha caafiyo marka muuqaalkan wuxuu ka tarjumayaa kumanaan qof oo lahaadkooda qabo oo ilaahay lahaadkooda siiyey haddana ilaahay aan xasuusinin ayuu muuqaalkaani ka tarjumayaa laakiin ogow inna cadaaba la shadiid war maalin qabasho adag leh ayaa jirto maalinkaas waa in lagu fikiraa wallaahi oo bilaahi oo tallaahi reer qabiil iyo laan dheeraan ahayn in la kaa fujin karin wallaahi cid kaa fujin karta male ilaahay subxaanahu wa tacaala maalintaasi waa maalinka keliya yaa ilaahay maalin aysan jirin laan dheeraan ahay hantaan leeyahay rasuulka calayhi salaatu wassalaam wuxuu sheegay maalinka qiyaamo dadka xitaa hadday haysan lahaayeen dhulka muggiisa oo dahaba haddii haysan lahaayeen ma xitaa waa isku furan lahaayeen war xitaa waa isku furan lahaayeen maantana inaad dhulka lablaabkiisoo dahaba inaad biiso waxa ka fudud ayaa maanta dad la weydiinaya taasoo ah inaad ilaahay caabudid waana laga tagay ilaahu rabbiyo raxmaan iskay cafi ilaahay iskay cafiyaa rabbiyo muuqaalkaani aad buu u kooban yahay laakiin waa muuqaal qiiradiisa leh oo ka tarjumaya nin kastoo caafimaad lahaa oo cibaadadeena ka tegay ilaahay xasuusin waaye waa kana إلى جنة في أعالي سماء جمال إلى جنة في أعالي سماء جمال الوجود بذكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته